لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ملك سحجتان كفايدي سفرتداسي قالقا waxaan ku dardaarmayaa waxa u لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن ملك سحجتان كفايدي سفرتداسي قالقا waxaan ku dardaarmayaa waxa u baahantii samir ilaahay haydan waafaji khayrka waxaan leenahaynaa kullu caam wa antum tayyibiin حج المبرور وسعي المشكور إن شاء الله. soomaalidu aad u jecel khayrka ayaa haddana aqoonta xajka aanan lahayn maxayse culummadu ka tidhi umuurtaasi haddaba hadday meeshii khayr jacayl la jiro aqoon la-aan la jirto waxaa imaanaysa arrin aan la mahdin marka waxa aan anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan maanta aan haysto ayaa waxaan u soo jeedinayaa ummadda soomaali meelay joogtaba jamhuuriyadda ha joogto etoobiya ha joogto kenya ha joogto jabuuti ha joogto ama dibadahaba waata ay soomaalidu firirtay oo london iyo talyaaniga waa laga soo wada xajiyaa kolka ummadda soomaali meel ay joogtaba intayan iman xajka cilmiga xajka inay qaadato intayan iman xajka inay cilmiga xajka qaadato kuna qaataan meesha ay joogaan kana ay qaataan culammada aqoon-yahanada ee diinta taqaan xajku waa tiir ka mid ah tiirarka islaamka islamarkaana qof walba oo awooda ay waajib ku tahay inuu soo guto haddaba awoodistu maxaa loola jeedaa dad badan baa iyagoo kari karaya inay xajaan haddana man istataaca ilayhi sabiila si khalada u fahansan waxa weeyaan istataaca ilayhi waxaa laga wadaa in qofka bani aadamkii uu nafaqo haysto uu isagu ku tegayo kusoo noqonayo sahay haysto reerkiisana wuxuu uga tago nafaqa yani uga tegi karayo haya kadalika qofku inuu xoog leeyahay qofkii haddii aanu caddu xanuunsanayo kadalika xajkii kuma waajibin ilaa intuu caafimaadayo haddii aanu caafimaadayn oo xanuunku yahay xanuun aan laa yurjaa bar'uhu aanu ka bogsan karayna waxa weeyaan markaa qofbu wakiilanayaa ka xaja dadka cusub oo iyagu markii ugu horreeyay wakti badanna lumay xajkiina la yimid haddana ayaan ummaddu wax u gudmin haddaba sida ay yidhahdaan soomaalida war hebel away wuu xaj tegey hala bedelo hana lagu bedelo wal hebel away wuu xaj gutay marka wuu xaj tegey iyo wuu xaj gutay waa kala fahmaysaane wuu xaj tegey waxa weeye maka iyo madiine iyo carafa iyo musdalif iyo munuu arkay oo soo maray wey wuu tegaydu wuu gutayna waxaa weeye wixii loo baahnaa buu sameeyey dadka qaar ayaa waxay yidhaahdaan aniga sanadkan laygama yeerin xajka iyagoo weliba awooda laakiin aysan ku dadaalin inay aadaan sheekh siciid ayaa mar kale ka hadlaya ilaahay subxana wa tacala wuxuu yidhi waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaala yani ilaahay baa idmay oo fasaxay in xajka la tago dadkana oo dhanna u yeedhay ilaa iyo waqtigii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu mashaacirta inoo jideeyey markaa qofku inuu yani arrimahaasu shaydaanku ku akhriyay inuu iska daayo weeyaan uu mubaadaro sameeyo markii ku dadaalo inuu yani markiiba ku dhaqaaqo xajku waa maalmo kooban oo ay dadku muslimiin